Afghanistan waxaan hadda soo gudubnay saldhiggii u dambeeyay ee ciidanka Herat, tani waa magaalada Herat. waxay ku taallaa galbeedka Afghanistan waxaan hadda soo gudubnay saldhiggii u dambeeyay ee ciidanka dawladda Afghanistan oo halkan ka difaacaan amniga goobtan waxaan ku sii jeednaa dhul lama deegaan ah oo buuro badan waxaan ku wajahanahay mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda Taliban oo noo ogolaaday inaan la kulanno oo aan waraysi ka soo qaadno waxaan nala socda qof turjubaan ah iyo askari ammaankeena ilaalinaya maadaama meeshaan u socono ay aad u khatar badan tahay miinooyin badan baa ku aasan jidka waxba hadda ha ka walwalin ma qarxayaan marka annagana laga reebo ma jirto qof halkan soo geli karta ama ka bixi karta markii aan ku soo dhawaanay meeshii aan u soconay waxay dhagaheenna maqlayeen dhawaqa rasaasta oo ay Taliban ridayeen raggan way mayal adag yihiin marka waa inaad xirataa xijaabkaaga waxaan soo gaarnay bar control oo Taliban ay joogaan waxayna nagu amreen inaan gaariga ka soo degno iyaga oo na weydiiyay waxaan nahay iyo ujeedkaan halkan u nimid isla goobta ayaan kula kulannay Mullah Majid oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan Taliban kaasoo markii hore u soconay inaan waraysi la yeelano annagu waxaan ku dhex jirnaa buuraha inta badan bannaanka ma imaadno laakiin hadda dartiinna baan u soo baxay ma fadhiisanno meelaha sidan oo kale ee dusha ka furan dagaalyahanada Taliban dhawaana iyo halkan qabsadeen waxaana ay awooddooda ku fidinayaan gobollo badan oo Afghanistan ka tirsan waxaan rajaynayaa inayna soo gaaraan dagaalyahanno aad u badan oo Taliban ka tirsan oo xoojin doona kuwa halkan jooga waxaan isku wareejinay dhammaan gobolka Herat waxaan sugaynaa amarka amiiradeenna inaan weerar ku qaadno gobolkan markaan qabsanno magaalooyinka waxaan marka ugu horreysa burburinaa iskuullada ay dawladdu dhistay macallimiinta ayaan kala erinaa kadibna carruurta ayaan waxaan barnaa manhajka Taliban ee soo saartay si aan u tababarno dagaalyahanada mustaqbalka ururka Taliban u dagaalami doona markii uu waraysigu dhammaaday waxay Taliban noo ogolaadeen inaan muuqaalo ka soo duubano xaafadaha ay maamulaan waxaana ujeedku u ahaa inayna tusaan nidaamkooda iyo sida ay u shaqeeyaan u soco sii wado shaqadaada iyo duubista laakiin haddii aan aragno gaari ay dawladdu leedahay waan weerari doonaa intaan ka badan kulama sii hadli karo diyaarado dronis ah baa hawadeena duulaya halkan ma sii joogi karo waa inaan si degdega uga baxaa guud ahaan Afghanistan meel kasta waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo Taliban oo dawladdii ay lahayd uu Mareykanku ku soo duulay 2001 waxayna kooxda xagjirka ah bilowday inay isfidiso markii ay NATO iyo Mareykanka sheegeen inay dalka Afghanistan kala baxaan ciidamadooda sanadkan Taliban waxay gacanta ku hayaan dhul ballaaran oo qaarkiis ay dhawaan qabsadeen waxayna ka saareen ciidamada dawladda oo dib u gurasho sameynaya taasoo khatar gelin karta inay Taliban dalka oo dhan kala wareegto Mareykanku waxa uu ku bixiyay ammaanka Afghanistan $2 bilyan welina xasilooni kama jirto oo waxa dhacaya qaraxyo iyo weerar joogto ah muwaadiniinta ku nool magaalada Herat waxay ku nool yihiin xaalad cabsi ah maadaama Taliban ay ku soo dhawaanayaan waxaana halkan ka jira nolol wanaagsan timajara baa shaqeynaya hoteeladana waxaa lagu dhigayaa aroosyo carruurtuna waxay ku ciyaarayaan banaanka Taliban waxay Mareykanka la gashay heshiis ah inay hubka dhigaan oo ay ku biiraan hanaanka geedi socodka nabadda iyo dhisidda dalka Afghanistan waxaan soo gaarnay gobolka Wardag annaga oo 2 saacadood u soo soconay safar dhanka dhulka ah mar labaad waxaan ku sii jeednaa dhul ay Taliban maamusho waxaana loo soo diray dagaalyahanno ilaalinaysa laakiin xaqiiqdu taas ma ahan annaga ayay ishu nagu hayeen intii aan wax duubaynay aan wadada soo soconay xaafadana waxaan kula kulannay Najiib Bulle
oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan Taliban wuxuu noo ogolaaday inuu nagu casuumo gurigiisa waana tallaabo dhif iyo naadir ah oo hogaamiyaasha isaga oo kale ay u sameeyaan wariyaasha ajnabiga ah 20 sano oo ciidamada ajnabiga dalka ka dagaalamayeen waxay abuurtay in shacabka ay ka aamin baxaan dadka reer galbeedka ah tani waa Zainab oo 10 jira waxaa dhalay hogaamiyaha Taliban gurigooda kuma jirto tubo biyo taas bedelkeeda waxay sameysteen ceelal biyaha ay ka cabaan xaafadan Taliban ayaa la wareegay 12 sano ka hor subaxii markaa soo tooso ceelka ayaa biyo ka soo shubaa guriga howshiisa ayaan qabtaa kadib waxaan aadaa iskuulka oo aan wax ka soo barto markii ay soo toosto subaxii Zainab waxay qabataa shaqada guriga kadibna waxaan u diraa iskuulka Taliban ay maamusho si ay wax uga soo barato Zainab iyo gabdhaha kale waxay dhigtaan iskuul Taliban maamusho oo maadooyinka diiniga ah lagu baro iyadoo tafsiirka Qur'aanka ardayda loogu fasiro luqadda Pashtunka oo looga hadlo gobolka Wardaag iyo gobolada kale ee dalka Qur'aanka Kariimka waxa ku jira erayo badan oo lagu qeexo micnaha Allah waa eray aad u awood badan meel kasto aad ku sugan tahay waa inaad Allah xustaa hadii gurigaaga aad joogtid iyo hadii aad wadada maraysaba Kariima waxay sheegtay inay caruurta ay wax la barataa yihiin gabdha aad u dagaal badan waxayna dalbanaysaa in loo dhiso madaraso weyn oo arday badan wax lagu bari karo maalin kasta muddo 4 saacadood ayaa lagu jiraa xiisada barashada Qur'aanka Kariimka waxaa dhamaatay xiisadii Qur'aanka Kariimka hadda waxaa ardayda u soo galaya macalinka xisaabta waxa uu salaamayaa ardayda marka hore isagoo weydiinaya xaaladooda sida ay tahay ka hor inta uusan bilaaban xiisada in uu nin macalin u noqdo gabdho waa arrin ku cusub meel ay Taliban maamusho gudaha dalka Afghanistan waxaan isku dayayaa inaan sabuuradda ku xalliyo xisaabta aad guriga uga soo shaqeyn weyseen mid baan u sharxayaa hadda oo si fiican ula socda 8 lagu dhuftay 3 waa 24 siyaabo kala duwan ayaad sidan oo kale aad ku xallin kartaa xisaabtan macalinkan waxaa lagu magacaabaa Sayid Aga waa macalin maadada xisaabta ka dhiga iskuulka gabdhaha wax lagu bara oo ku yaala tuuladan ay Taliban gacanta ugu jirto dadka qaar waxyaabo xun ayay ka sheegaan Taliban laakiin xaqiiqdu waxay tahay in halkan caruurta wiilal iyo gabdho si siman ay wax u bartaan waayo waa jiilka xiga ee soo koraya oo loo baahan yahay in uu yeesho aqoon dhan walba ah gabdhuhu markay wax bartaan waxay noqon karaan injineero dhaqaalyahano dhaqaatiir ama macallimiin xaqiiqda ayaa ah Zainab iyo saaxiibadeed fasalka inaysan haysan fursad ay jaamacadda ku dhigan karaan marka ay waxbarashada hoose dhameeyaan 80% dumarka Afghanistan waa kuwa aan wax baran gabdho wax kasta soo bartay magaalooyinka dawladda maamusho ayay yimaadaan deegaanka si ay shacabkooda ugu adeegaan waxaana kamid ah gabdhahan ka shaqeysanaya xarunta caafimaadka oo ay ku qaabisho bukaano dumara oo qaarkood ragga Taliban ay qabaan bukaan miyaa tahay halkan soo fariiso Soqra Sadiqad waxay si joogto ugu timaadaa magaalada Kabul iyadoo ka shaqeysa isbitaalkan oo aan lahayn haweeney dhakhtar ah oo daweysa bukaanada dumarka 20 sano ka hor Taliban gabadhan uma aqbali lahayn inay wax barato balse waxa uu suurtageliyay in kooxda laga saaray gobolkeeda iyadoo aaday caasimadda si jaamacad ugu soo dhigato kulliyadda caafimaadka sidee lagu hayaa cuntadii baan ka go'ay waxba ma cunin muddo 2 maalin ah ma jiraan wax dhibaatooyin oo guriga kala kulantid dhibaatooyin badan baa iska jira waa maxay dhibaatada ma culeys baa ku haysta xagga dhalmada maya cunug waan dhalay laakiin wuu iga dhintay waan ka xumahay adiga qalad kama lihid laakiin waxaa lagaa rabay inaad siisid cunugaaga daryeelkii uu u baahnaa dhammaan dumarka reer Afghanistan waxay ka siman yihiin xanuunada dhanka maskaxda ah waayo cadaadis badan bay ragooda kala kulmaan loomana ogolaado inay dibadda u baxaan degmada si gaar ah hooyooyinka waxaa haysta dhibaatooyin kala duwan iyo nolol dhib badan markasta waa ay xijaaban yihiin ma helaan nafis yar Soqra Sadiqad waa gabadha kaliya ee ku dhex safri karta Kabul iyo degmada
cumar khayl labadaba dhinac ee dowladda iyo taalibaan oo cadow isku ah ayay ku heshiiyeen inay gabadhan ay daaweyso haweenka dhulka taalibaan ku sugan. maalintii ugu horeysay aan halkan imid taalibaan waxay i weydiiyeen shahaadadeeda caafimaadka. waa dad aad u feejigan, waxay bareen jaamacadda aan kasoo qalinjibiyey iyo aqoonteeda dhanka caafimaadka. markii aan halkan joogo waxaan ku qasbanahay inaan jirkayga oo dhan xitaa wejiga aan qariyo. tanna ma sameeyo markaan Kabuul joogo. haddii aan isku daboolin dadka halkan jooga waxay iga fahmayaan fikir qaldan oo ah inaan dumarka deegaankan aan fasahaadinayo oo aan faafinayo dhaqanka gaalada. markii ay taalibaan maamulayeen Afghanistan 1990-meeyadii haweenka looma ogoleen inay la kulmaan dhaqtar rag ah, laakiin hadda wax kasta way isbedeleen oo waxaa deegaanka isbitaal ku yaala ka shaqaynaya nin dhaqtar oo bukaan dumar ah qaabilaya. hooyadan waxay joogtaa xilligii dhalmada, waana qof aad daciif u ah oo dhiigga uu ku yaryahay. waxaan u sheegay hooyooyinka kale ee deegaanka inay halkan ay yimaadaan oo ay ku dhalaan xilliga foosha, una sheegaan kuwa kale halka uu ku yaallo isbitaalka iyo shaqada wanaagsan ee howlwadeenadeena caafimaadka ay qabanayaan. hooyadii ayaa maanta umushay, waxayna dhashay gabar. waxay heshay daryeel caafimaad oo wanaagsan. waxay u mahadcelinaysaa dhakhtarka oo ku soo booqday qolkeeda kadib markii ay umushay. haddii aad eegtid habdhaqanka halkan ka jira, waa mid bulshada aan isdhexgal badan ka jirin oo taalibaan ay ku soo rogeen sharciyo adag, gaar ahaan haweenka oo wax walba laga mamnuucay, xitaa waxbarashada. Zaynab iyo aabaheed maanta waxay u soo baxeen inay dukaamaystaan. waxay tageen dukaan aan gurigooda ka fogeyn oo lagu iibiyo cuntooyinka iyo bagaashka. Zaynab waxay ka dalbatay aabaheed inuu u iibiyo buug iyo qalin maadaama ay ardayad tahay, waana uu iibiyey. dukaankayga wax dhacay laguma iibin karo, waayo taalibaan haddii ay ugu ogaadaan waxaa igu dhacaya ganax lacageed oo xooggan. runtii aad ayay u fiican tahay in lagu noolaado meel ay taalibaanku maamulaan, waayo sharciyo adag ayaa ka jira. meelaha dowladda qaarkood wax walba oo dhacay dadku waa laga iibin karaa xilli kasta. dhanka ammaankuna aad buu u fiican yahay. halkan waa meel ku wanaagsan in lagu noolaado laguna shaqaysto, laakiin dhulka ay dowladdu ay maamusho taasi suurtagal ma ahan in habeenkii xilliga saqda dhexe goobtaada ganacsiga ay furnaato, waayo khatar badan ayaa ka jirta. dumarku way ii yimaadaan iyagoo aan nin la socon, laakiin xiran xijaabka taalibaan ma celinayaan. labadii maalmood ee aan joogay degmada Cumar Khayl ma arag hal qof oo dumara oo goob ganacsi ku jirta. waxay ka mid tahay tani dhibaatooyinka caburinta ay taalibaan ku hayso haweenka. annagu markii ay naga dhammaadaan badeecooyinka aan iibinno uma aadi karno magaalooyinka waaweyn ee dowladdu ay haysato, waayo wadooyinka waxaa ka jirta khatar aad u badan. waxaan samaynaa inaan badeecooyinkeenna u dirsino baabuurta oo halkan inoogu keena. taalibaan waxay saameyn ku leedahay nolosha dhammaan dadka halkan ku nool. waxay xitaa isku casuumaan kulan guriga Sadiiqi oo isagu aan ka mid ahayn kooxda, balse uu ku qasbanaaday inuu ku soo dhaweeyo hoygiisa. 8 sano ka hor ciidanka dowladda iyo kuwa Mareykanka ayaa soo weeraray gurigiisa iyagoo baadigoobayay taalibaan. mar kasta shaah baan wada cabnaa dagaalyahanada taalibaan ee hoygayga igu yimaada. annaga waxaan nahay dad shacab ah, cidna ma taageerno labada dhinac ee dagaalka Afghanistan u dhexeeya. waxaan doonaynaa oo keliya inaan nabad aan ku noolaano oo caruurteenna ay nabad ay wax ku bartaan. waxaa kale oo ii sheegay Cumar Khayl in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay si aan kala soc lahayn u duqeeyeen deegaanka, iyagoo qoyskiisa ka dilay 5 caruur ah oo iyagoo hurdaya la soo weeraray. taalibaan waa wiilal halkan ku dhashay, mid baan u garanayaa. wax cadaalad darro ah lagama filayo inay ku sameeyaan dadka deegaanka. waa dad aad u wanaagsan oo aan ku xadgudbin shacabka halkan ku nool. markasta gurigayga ayay igu yimaadaan, shaah baan wada cabnaa, ma jirto wax dhibaato ah oo ay nagu sameeyaan.
sida ay sheegtay hay-ad madaxa bannaan oo caalami ah, ciidamada Afghanistan oo taageero ka helaya kuwa Mareykanka ayaa mas-uul ka ah dilka shacabka 3 meelood hal meel kuwaas oo lagu dilay magaalada. tani waxay kicinaysaa carada shacabka taa oo dhalisay in dadka ay taageeraan Taliban oo sheegtay in dadka ay ka difaacayaan ciidamo ku soo duulay iyo dawlad aan shaqaynaynin. Afghanistan waa dal inta badan baadiye ah, mashaariic horumarineed oo ay maalgelinayaan beesha caalamka ayaana si goos-goosa u gaara dhulka miyiga sanadba sanadka ka dambeeya. Maxamed waxaa beerihiisa saameeya abaaraha. dhulka waa mid wanaagsan oo la bacrimiyey balse ma haysto biyo ku filan, sidaa darteeda dalagu waa uu qalalayaa marka aan beerno. ma jiraan meelo kale oo aan ku keedino biyaha oo halkan aan aad ugu baahannahay inaan beeraha ku waraabino. waxaanan jirin mashaariic horumarineed oo beeraha loogu talagalay oo halkan yimaada maadaama dagaaladu ay saameeyeen Taliban ay xukunto halkan. sanadkan waxaan awoodnay in dalagii noo baxay aan u dhoofino dalka Pakistan, balse inta badan waxaan ku iibinaa magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. wax dhibaato ah nooma geystaan Taliban, mararka qaar xitaa waxay naga caawiyaan ganacsiga. halkan waxaa maamula Taliban. waxaad ku safri kartaa xilli kasta wadooyinka deegaanada Taliban ay maamulaan adigoo lacagtaada wadata, laakiin khatar badan ayaad kala kulmaysaa wadada marka loo socdo wadanka Pakistan. waad og tahay Taliban inay qaraxyo iyo miinooyin ay wadada dhigeen, taana ay ugu talagaleen inay cadowga ku soo duulaya ay kaga hortagaan. Taliban ayaa sanad waliba dadka beeraleyda ka qaada 10% dalaga u soo go'a. waa waajib diini ah. waxaan siinaa 27 ilaa 30 kun lacagta dalka Afghanistan oo canshuur ahaan u bixino. hadba waxay ku xiran tahay dalaga noo baxa iyo ganacsiga sida uu yahay. haddii uu kordho way kordhaysaa lacagta canshuurta ee aan siino Taliban. haddii uu suuqa hoos u dhacana waxaa yaraanaysa canshuurta. 30 kun oo reer Afghanistan ah oo beeraley ayaa sanadkiiba Taliban canshuur ahaan u siiyaan lacag lagu qiyaasay 300 oo euro, taas oo ah lacag aad u badan marka loo fiiriyo dal dadkiisa qayb ka mid ah ay ku nool yihiin saboolnimo. waxaa lagu go'aamiyaa lacagta canshuurta halkan masaajidka banaankiisa. waxaana sidoo kale Taliban ay soo saareen amaro lagu mamnuucayo waxyaabaha maanka dooriya iyo dhaqamada xunxun ee islaamka ka soo horjeeda. haweenkana looma ogola inay galaan masaajidka. inkastoo aan ku jirno dagaal, haddana tulooyinka aan maamulno waxaan ka hirgelinay mashaariic badan oo horumarineed. waxaan dhisnay iskuullo, barnaamijyo beeraha lagu horumarinayo iyo goobo lagu kaydiyo dalagga beeraha. weli waxaa jirta sabab aan u dagaalanno. marka uu dhammaado dagaalka waxaan horumarin doonaa waddankan dhan walba. marka ay baareen lacagaha golaha cadaaladda waxay kormeerayaan bannaanka meelaha ay maamulaan Taliban. waxay sameeyaan maxkamado maxalli ah oo go'aano ka gaari kara kiisaska dhaca. nidaamka cadaaladda Afghanistan waxaa la sheegay in musuqmaasuq badan uu ka jiro. xitaa dad badan oo ku nool deegaanada ay maamusho dawladda waxay doontaan cadaaladda maxkamadaha Taliban. aaway feelasha qof ha ii keeno. maanta waxaa la maxkamadeynayaa 3 dagaalyahan oo lagu eedeeyay inay si qaldan u adeegsadeen hubkooda. maxaa cirka ugu rideen rasaasta? anigu ma ogeyn taasi inay mamnuuc ka tahay halkan. codkaada kor u qaad. rasaasta waad riday. maxay tahay sababta? ma dabaaldegaysay? haa, waan dabaaldegayay. waxaan xilligaasii joogay goob aroos ka dhacayay. soo kama warqabtid inaad jebisay xeerka halkan u yaala ee Taliban? maya, anigu waan ku cusbahay halkan, mana la ii sheegin amaradaasi. annaga waxaan warqado u qaybinay dhammaan odayaasha xaafadaha oo aan ku wargelinay xeerarkeena iyo sharciga u yaala Taliban. sidaas darteed waxaa la idinku xukumay in aad hubka dhigtaan, maxaa yeelay in xabad micno darro loo rido waa ka mamnuuc deegaanada Taliban sababtoo ah dadka ayaad cabsi geliseen. ma qiraysaan inaad jebiseen sharciga? haa, waan qiraynaa inaan dembigaasi galnay. midka saddexaad, kaalay horteeda imaaw. ninka saddexaad waxa uu ku eedeysan yahay in qarashaad badan uu ku bixiyey xafladda meherka wiilkiisa, waana dembi xukun lagu mutaysan karo sida uu dhigayo xeerka Taliban. adiga magacaa? magacaygu waa Xaaji Bashamiir. ma og tahay sababta ay kuugu yartay maxkamadda?
wiilkayga waa dagaalyahan ka tirsan taalibaan waxaan u dabaaldegayay xafladda meherkiisa. haa laakiin wiilkaaga ayaa taalibaan ah adiga ma aha. haa waan ogahay taasi. waxaan u dabaaldegayay xafladda meherkiisa isaga ayaa taalibaan ah oo keliya. ka mid ahaanshihiisa taalibaan ma siinayso xuquuq dheeri ah dadka isaga oo kale ah ama aniga xitaa waa in la ciqaabaa sababtoo ah hadafka taalibaan waa in ilaahay dartiis jihaad loo galaa. dhinaca kale waxay arrintan dhibaato u horseedaysaa dadka oo ku dayanaya isla markaana galaya dembiyo lagu ciqaabi karo. haa waan ku raacsanahay markhaatiyaasha halkan ka marag furay dembigayga. waan qirayaa inaan dembigaasi galay aad baana uga xumahay. asal ahaan annagu xafladda meherka waxaan ku casuunnay 6 qof oo keliya, laakiin wiilkayga oo taalibaan ah ayaa dad badan ku casuumay oo xafladda ka soo qaybgeliyey.